barasaabka gobolka Gabiley Maxamed Xaaji Ismaan Indhabalac gudoomiyaha degmada Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi iyo taliyaha qaybta gobolka Gabiley ayaa ka hadlay shaqaaqo faraha la iskula tagay oo ka dhacday galbeedka magaalada Wajaale. Shaqaaqadan ayaa ku soo beegantay iyadoo halkaasi ay maamulka degmada Wajaale ka dhagax dhigayeen galbeedka magaaladaasi Wajaale Sariimad. Halkaasi ayaa markii ay soo gaareen wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Naasir Caydiid iyo wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha Yurub Abiib iyo mas'uuliyiin kale oo ka socotay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ayaa mar kalaata waxa lagu bilaabay askartii halkaasi ku sugnayd dhagaxaan iyo majarafado halkaasi oo ay isku difaaceen askartii halkaa ku sugnayd rasaas nool iyadoo halkaasi khasaaraha ka dhacay uu ahaa inta aan ognahay 2 askari oo ay shacabkii halkaasi la dhaceen dhagaxaan iyo majarafado. intaa kadib ayaa ay ku baraarugeen askartii halkaasi joogtay rasaas kaga soo dhacaysa dhanka galbeed oo ay ridayaan rag afka duubtay iyadoo halkaasi ay ka soo huleeleen ciidamadii booliisku. wasiiradii halkaasi ka soo qayb galay ayaa iyagu markiiba ka soo baxay magaaladaasi Wajaale waxaana saxaafadda kula hadlay guriga martida ee magaalada Wajaale barasaabka gobolka Gabiley iyo taliyaha qaybta gobolka Gabiley gudoomiyaha degmada Wajaale iyagoo ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa meesha shaqaasaa ka soconaysay shaqadaasina shaqa qaran kuleeyahay shaqa guud baahayd oo dan guud baa laga hadlayay dadka meesha ay dawladda ahaayeen haddii iskuul laga dhigayo iyo haddii amsiis laga dhigayo labada dawladda ka wakiila oo u dooraysa halka ku habboon tahay wax waliba oo la doo fariisanaya inaguna shaqada qaranka aynu hayno haddii dadku kala garan waayeen cadowgoodiina sixdu waa dhibaato. ciidan baanu haynaa hub baanu haynaa dab baanu gacanta ku haynaa dadkii in la soo abaabulo oo la askarta dhagax ku tuura sax maaha dadka in la soo abaabulo oo qoryo la soo qaada sax maaha caruurtii iyo reerihii iyo dadkii bay dhex joogaan qofka hadduu gooni baxo dhibaato ma lehe ee xaggii sariimadii in la soo dhagax dhiga la doonayay ayaa dadweyne ujeeddadooda aanu fahmi weynay ayaa halkaasi ciidankii iyo waftigiiba kaga hor yimid. meeshu waa meel dan guuda meesha danta guudana dee dawladda ku shaqale waxay ka dhigaysana iyadaa ka mas-uula meeshaasina inaannu sariimad ka dhigno ayuu qorshaha iyagu ahaa. meel ballaadhan maahae waa meel 40 mitira. qolada nimka shicibka yaacaysa waxa laygu yidhi iskuul bay doonayaan wax gaar ah qaadanayaan oo meel gaar ah cid ay u riixayaan ma jirin wax looga sameeyeen waxay ahaayeen dan guud bay ahaayeen dhibtaasi maanta meesha ka dhacday rag waaweyn oo magaaladan ma garanaysaa de ka mid ah oo qaar ganacsatada ka mid yihiin baa qoryana la soo baxay ciidankii iyo mas'uuliyiintiina dhagax iyo shiid ku weeraray. taa waxay inay tusaysaa inaanay de damiirkoodu ahayn de wax doon iyo iskuul doon iyo dan guud doon ay ka tahay de gardarro iyo de ma garanaysaa de dan gaarade. waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley.